waa fanaan hore haddana ah shiikh weyn oo dadka wacdiya. FJ Xabeeb oo hadda la baxay Sheekh Xabeeb ayaa noqday sheekh kadib muddo uu fanka ku jiray. Waxa uu saaxiib la noqday masaajidda iyo goobaha diinta lagu faafiyo, halka markii hore uu saaxiib la ahaa heesaha iyo faasiqada. Haddaba safarkiisa fanaan ilaa iyo sheekh ayaan muuqaalkan ku faaqidi doonaa. Ugu horreyn follow bogan Xuseen Xaaji Xasan, muuqaalkana like saar siina share garee si Soomaalida dhan uu gaaro. FJ Xabeeb waxa uu ahaa fanaan taageero badan ku lahaa fanka. Waxa uu caan ku ahaa raabka, waxa uuna aad uga muuqday bahda fanka. Intii uu fanaanka ahaa waxa uu ku luqeyn jiray heesaha nooca qoobka ciyaarka loo yaqaan oo fanaaniinta ku heesi karta ay aad u yareed xilligii uu bilaabay FJ Xabeeb. Sanadihii 2015, 16 iyo 17 ilaa iyo laga gaaro 19 ayuu ahaa fanaan taageero badan ku leh bulshada ka hor inta uusan ka bixin fanka. Waxa uu intiisa badan ku noolaa Kenya xaafadda Islii, waxa uuna ka mid ahaa xidiga ku midoobay magaca xidigaha Islii oo ku heesi jiray heesaha qoobka ciyaarka ama raabka. Sanadii 2019 dhexdeeda ayuu fanaankii hore FJ Xabeeb shaaciyay inuu joojiyay fanka ama heesaha oo ay ku barteen dadka oo aadna ay u jeclaayeen codkiisa iyo qoobka ciyaarkiisa cajiibka ahaa inta uu fanaanka ahaa. Si toos ah ayuu muuqaal u soo hor fadhiistay xilligaasi isagoo sheegay inuu ka toobad keenay heesihii iyo faasiqnimadii uu ku dhici jiray sanado badan. Waxa uu sheegay inuu ahaa nin indhala ah waqtigaasi wixii ka horreeyay, geeri ama dhimasho iyo janno iyo naar midna maan ogeyn inay jirto ayuu yiri. Qowmameen iyo toobad kadib waxa uu bilaabay xilligaasi wixii ka dambeeyay inuu barto diinta. Waxa uu raacay wadaadada tabliiqa, waxa uuna oogay salaada, quraanka iyo cilmiga ayuuna fahmay isaga iyo saaxiibo ay iskagala yimaadeen fanka. Muddo kadib masaajidda ayuu ka bilaabay inuu ka wacdiyo isagoo la socda tabliiqa oo masaajidda ka wacdiya. Waxa uu gooyay saaxiibadii uu fanka ku lahaa oo fanaannimada wax weyn u sii arkayay. Marar badan ayuu fariimo si public ah iyo si hoose ugu diray asxaabtii fanka uu ku lahaa, isagoo u sheegaya in jahannamo ay u dambeyn doonto wax walba oo camal shaydaan ah. Fanaankii hore FJ Xabeeb hadda waa Sheekh Xabeeb. Waxa uu dadka ka wacdiyaa xumaanta isagoo khayrka fara. Dhowaan xilli la weydiiyay noloshan uu hadda ku jiro iyo tii fanaannimo midda uu door bidayo, waxa uu sheegay in mugdi iyo nolol xiran oo iftiin lahayn uu ku jiray xilligii fanka. Waxa uu sheegay in geeri uu ka xigo ku laabashada fanka ama heesaha. Dhammaan dadkii jeclaa heesihiisa, fankiisa iyo qaabka uu u ciyaari jiray ama dadka dhageysta haatan heesihiisa ayuu codsaday inay iska iloobaan. Heesahayga dhageysigoodu ayaan kaaga digayaa walaalkayga qaaliga ayuu soo mariyay baraha bulshada markii uu ka baxay waxa uu ugu yeeray nolosha mugdiga ah. Haddaba muuqaalka like saar siina share garee si fariintiisa ay u gaarto dadka dhageysta heesihiisa. Ku soo biir bogan Xuseen Xaaji Xasan si muuqaalo kuwaan la mid ah aad u hesho maalin walba. Mahadsanid. waxay ku dhamaanaysaa waa qabriyada walaalayaal. Sana meesha doonta joog, waxaad doontaa haw dambi walba gal, kalaamka doonta joog, waxaad doonta qaad. haddii walaalayaal waxa weeye ilaahay ku soo laabato, ilaahay waa qafuur raxiim. ilaahay wuxuu leeyahay fafiru ila allah, wuxuu leeyahay ilaahay ala soo ordo, ilaahay xaqii hala soo ordo leeyahay walaalayaal. xaqii shalana xaqii ilaahay ma ka cararaynay, maantana xaqii ilaahay ku cararaynaa. inuu ilaahay ma ka imaanay walaalayaal. ilaahay waa qafuur, waa mid dunuubta dhaafo weeye. ilaahay wuxuu leeyahay qul yaa cibaadiya alladhiina asrafuu على أنفسهم لا تغلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. دمي والله إمو واحد الله إمو هذا إلهي هذول شركين أو إلهي سلم أو تماضو إلهي وحاول يدرب ضاو ودافع يا ولا ليال مركي أنا رجب بيلن رجد ولا وحاول ولا ليال والشيء قال إلهي حلياي رجب بيلن أنا حي بلياي أنا الله يموت بلياي أنا ذنوب تدافع بلياي إلك يدرب الله يموت ذنوب إلهي حلياي أنا دافع إن الله غفور رحيم وغفور صفة إلهي ما يسكله يعني بني آدم باناني وان قلدنا ولا ليال هبين بينو قلدمنا مالين بينو قلدمنا وينو حمرنا وينو هيسينا وينو معسيسنا كلام بينو قلنا قال بينو راعنا وحن دورنا سميرنا إنه نقرش عن الله لكن هذا هو دورنا اللي محاوي إلهي هو غفور إلهي هو غفور صفات ما عالم قوة الله إلهي هو موتشي ولا ليال وكونا عرتنا ما تنا ولا عرتنا تاسنا ولا وحين عضينا إنسان إنه إلهي هي غفور ولا ليال قرينا نبته وحباشة ولا محاوي هذا إلهي هذا الرجال oo ilaahay waxa way ka dhigto waxa way walo kulli walo keeni kulli halka walo keeni